أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الله بن سمير الحضرمي: فصل في بيان الأحداث. فصل هذا متكان فاصل المدوح كالسارو في بيان الأحداث، وحو فصل يهي وحيالها ويسد الجبية عدين تودي. ما دام الشيخ رحمه الله تعالى فصل كي هراء ونوغسو عديي فروض الوضوء وحيالها اللوغباهن يهي واجب ككن غنى يقفك ويساق عدناي waajibaadkii wasaqaadka maadaama uu soo cadeeyay soona dhammaystiray sheekhu raximahullahu tacaala halkan wuxuu rabaa inuu ku cadeeyo waxyaalaha burinayo wasaqaadka. nawaaqidul wuduu'i wasaqaadka waxyaalaha buriya arbacatu ashyaa, afar shay ayaa qofka weesadiisii ka burin kara. haddii afartaa shay inay qofka ku kulmaan oo afartooduba ay wada kulmaan loolama jeedo, ay axadu haadihi alashyaa ayaa loola jeeda. afartooda hal xabo oo ka mid ah ayaa weysadii jebinaya. afartoodu inay meel ku wada kulmaan shardi ma aha. alawalu kan ugu horeeya weysadii burinaya alkhaariju waa midkii ka soo baxay min axadi sabiileyn, labada jid mid ka mida kii ka soo baxay. min qubulin, qubulka ah meesha laga kaadiyo ah, aw amase duburin ama dabadii ah. riixun dabayl ah, aw gayruhu gayru riixi ama dabayshaa gayrkeeda ah, ila almaniya manigii maahane. kan ugu horeeya sheekhu wuxuu inoogu sheegay raximahu llahu tacaala alkhaariju min axadi sabiileyn, labada jid mid ka mida kii ka soo baxay. min qubulin, qubulka hore meesha laga kaadiyo wixii ka soo baxa, aw duburin ama dabadii ah. meesha laga kaadiyo iyo meesha laga saxaroodo labadaasaa loola jeedaa labadaa jid haddii mid ka mida ay wax ka soo baxaan, kaasi waa naaqid min nawaaqid ulwuduu. waa waxyaalaha wuxuu ka mid yahay wasaqaadka markaas burinaya. waxa ka soo baxa la fiirin maayo waxay yihiin, walow xataa qoray ha ka soo baxo, dabaylo ha ka soo baxdo, saxara ha ka soo baxdo, kaadiyo ha ka soo baxdo, dhiig ha ka soo baxo, noocuu doona ha noqdo waxa soo baxay. ayu shay, wax kasta oo ka soo baxa labadaa jid weysadii way burinayaan. haadaa bayaanun lisabiileyn, waa caddayn labada jid uu sheekhu kuu caddeeyey. oo min ayi haqbin kaana, ama duleel ha ka soo baxo kale, idaa kaana axaduhumaa munsadan insidaadan khilqiyan. yacni halkan sharax wuxuu uga hadli haddii labadii jid mid ka mida aysan waxba ka imanayn uu xihan yahaba. labadii jid mid ka mida ayaa xihan, oo dabadii yaaba xihan, oo ilaahayba subxaanahu wa tacaala qofkan looma abuurinba. daba uu ka saxaroodo maba loo abuurin, tusaale ahaan waaba xihan tahaba. laakiin meel kaloo duleesha ayaa jirkiisii ilaahay uu ka furay. meel kaloo duleeshaa wax ka yimaadaan, dabadiina waaba xihantao maba loo abuurinba, daba ay wax ka baxdo. qofkaa xukunkiisu see noqon? duleelka kale ee furan wixii ka soo baxa ayaa naaqid noqonaya markaa, oo weysada burinaya. wa kaana alkhaariju min athaqabati, duleelka kaleoo meesha ka furan kan ka soo baxayaana munaasiban uu yahay mid munaasib u ah lilmunsadi, midka xirmay uu munaasib u yahay. ka an insada waxaa xirmay alqubul, meeshii tusaale ahaan kaadidu ka soo bixi jirtay aa xihantay. fakharaja minha min tilka thaqba, duleelkii kale oo jirka ka furmay waxaa ka soo baxay bawlun kaadi, oo kaadidaas waxay munaasib u tahay meeshii xihantay, oo qubulka ay la xirmay, qubulkii kaadidu munaasib u tahay. marka duleelkaa kale oo jirka ka furmay wixii ka soo baxa oo kaadi u eg weysadii waa burinaya. awidubur, ama waxaa xirmaba dabadiiba ilaahay uma abuurinba, waa xihan tahay. fakharaja minha min tilka thaqba, meel kaleo duleelah waxaa ka soo baxay gaa'id, saxaradii meel kale ka socotaa. ilaahayna uguma talagelin oo dabadii waaba xihan tahayba, oo looma abuurinba. meel kaleo duleelah saxaradii ka socotaa, waa naaqid. saxaradaasi way burinaya weysaqaadkii. وكذا وحا لمدا إذا كان غير مناسب لواحد منهما كالدم
haddii labadoodiiba aysan munaasib u ahayn qubulkii iyo duburkii labaduba uusan munaasib u ahayn waxa duleelka ka soo baxay sida dhiig oo kale oo la mid weysada waa burina see marka la yeelay haddii uu munaasib u yahay lilmunfatix wa ama in kaana shayga khaarijka duleelka kale ka soo baxay munaasiban lilmunfatixi faqad meesha duleelka furmay ayuu munaasib u yahay bis falaa naqda markaa dee weysadii burin mayso haddii duleelka furmay bis uu munaasib u yahay oo labadoodiiba uusan markaa munaasib uusan u ahayn dee markaas naaqid noqon maayo weysadii ma burin maayo wa ama in kaana axaduhumaa munsadan insidaadan caaridan halkana sharax wuxuu uga hadli haddii insidaad caarid uu jiro oo insidaad caarid waxaa loola jeedaa ilaahay waa u abuuray labadii jid ilaahay wuu u abuuray subxaanahu wa tacaala laakiin cuduraa yimid oo cuduray u xirmeen waa dadka qalliinka inta lagu sameeyo dabadii dhakhtarku in muddo kooban uu dabadii markaas xiraayo saxaradu inay u gudubto oo qofkii marka dhakhtarku uu furaayo keliyaha oo kale inuu ka saxaroodo waa dadka dhaawaca ama xabaddu ay ku dhacday dadkaa xukunkeeda see la yeeli oo keliyaha ka saxaroonayo oo dhakhtaraa xiray yacni xabadaa ku dhacday waa la xiray dhinaca kelidaa loo fasaxay inuu ka saxaroodo muddo kooban ka bacdina xididkii loo sii wareejiyo dabadii caadi uga saxaroonayo qofkaasuu marka masaladan dambe ay ka hadli wa ama in kaana axaduhumaa labadooda midkood hadduu yahay munsadan mid xirmay insidaadan caaridan waa xirmid yacni hadda timid oo hore uma xirnayn falaa budda waxaa laga maarmaana an takuuna thaqaba qariiba min almacidda duleelka dhakhtarku furay waa inuu markaas u dhow yahay maciddada caloosha waa inuu u dhow yahay haddii caloosha meel u dhow markaas dhakhtarku uu duleeliyo meeshaana uu ka saxaroonaayo dee markaas waa naaqid min nawaaqid alwudu weysadii waa bure markaas marba haddii dhakhtarku meesha uu duleeliyey ay tahay meel u dhow maciddadii calooshiiba meel u dhow hadday tahay waa burine markaas maxaa yeelay meeshana waxay beddel ka tahay dabadii xidhantay oo dhakhtarku uu xiray ayaa waxaa beddel ka ah duleelkan furmay oo ka furmay meel caloosha u dhow marka weysadii waa burin markaa qofka keliyaha ka saxaroonaya isaguna haddii ay wax ka yimaadaan weysadii waa ka burtay fa in kaana fii rijlihi aw naxwihaa ama lugta iyo wixii la mida laakiin haddii laga furo calooshiiba uma dhowa lugihii iyo wax la mida meelahaasaa laga furay oo meelahaasa saxaradu ka imaane lam yanqud ilkhaariju minha weysadii markaas buri mayso waxaa shardi ah haddii insidaad caarida yimaado in meeshu caloosha ay u dhowdahay hadday caloosha u dhowdahay weysadii waa burinay hadday caloosha ka fog tahana weysadii ma burinayso markaas waa waxyaalaha dhakhaatiirtu maaragtaa qofka markay qalliin ku sameeyaan xukunkeedu kaasuu noqon markaas alأwal alkhaarij min axadi sabiileyn min qubul aw dubur qubulkii ama dabadii waxaa ka yimid riixun dabayl weeye waxaa yimid oo soo baxay aw gayruhu gayru riix ama dabayl kayrkeed dabaylaa ka timid dabadii ama wax kalea ka yimid walow qorab ha ka soo dhaco waa naaqid mar walbaba min nawaaqid alwudu hada kani bedelu min qowlihi alkhaarij uu bedel ka yahay ay sawaaءun kharaja dalika الriix min alqubul aw اdubur oo dabayshani ama ha ka timaado dabada ama meesha laga kaadiyaba dabayshu ha ka timaado waa isla mid mar walbaba weysadii waa burtay laakiin waxaa shardi ah marka la leeyahay wixii labada jid ka yimaada noocay doonaanba ha noqdaan weysada waa burinayaan waxaa shardi ah an yakuuna shaksu xayan qofku waa inuu nool yahay amaa qofkii meydka ahaa haddii tusaale ahaan meydka ilaa waa loo weyseeyaa kabacdina waa la dhaqaa inta loo astajeeyo qofka meydka ah oo loo weyse qaado ayaa kabacdi la dhaqaa qofka meydka ah meydkii tusaale ahaan waad u astajaysay waa u weysaysay markaad u weyse qaaday qofkii meydka ahaa ayaa wax ka yimaadeen gadaashiisaa saxaro ka timid saxaro ayaa meydkii ka yimid markaad u weyse qaaday kabacdi ood dhaqday kabacdi ayaa meydkii saxara ka timid xukunkeedu muxuu noqon dee qofkaa meydka ah weysadii ka buri mayso maxaa yeelay weesadii ka burtaa qof nool bis ayaa weese ka burtaa amaa qofka meydka ah weese kama burto walidaalika haddii qofkii meydka ah intaad u weyse qaado markaad u weyse qaaday kabacdi dabadiisii ay wax ka yimaadaan markaa weysadiisii sidii u jirtaa kaliya waxaad samaynaya nijaasadaasaad ka mayre nijaasada in laga mayro ayaa waajib noqonaysa bis laakiin ma dhahayno aan ku soo celinno weysaqaadkii meydka weysaqaadkiisii aan ku soo celinno ma dhahayno marka naaqidkan oo haddii labada jid mid ka mid ay wax ka soo baxaan
in weysadu buraysana axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay oo waxaa ka mid ah xadiiskii bukhaari uu wariyey min xadiisi abi hurayra xadiiska abi hurayra oo nabiga salى الlahu عalayhi wasalam uu yidhi laa yaqbalu llaahu salaata axadikum qof adinka idinka mida salaadiisii ilaahay ma aqbalayo idaa axdatha haddii weysadu ay ka burto xataa yatawada ilaa uu ka weyse qaato qiila liabi hurayra waxaa lagu yidhi mal xadaث abu hurayra waxaa lagu yidhi xadadka muxuu ula jeedaa rasuulku salى الlahu عalayه wasalam qaala fusaa'un aw duraar markaasuu wuxuu yidhi waa dabaysha dabada ka imaanaysa dabada waxa ka soo baxaya taasuu ula jeedaa rasuulku salى الlahu wasalam wabaaraka calayhi ow gayruhu gayru riix ila almaniya manidii maahane manida wuu ka soo reebay sheekhu raximah اllahu tacaala ilaa wuxuu ku soo yidhi labadaa jid wax kastoo ka soo baxa weysadii waa burinayaanu ku soo yidhi laakiin waxaa laga soo reebi manidaa laga soo reebi manidii ayaa laga soo reebi manidu iyadu waxay keentaa qubays laakiin weysadii ma burinayso ila almaniya ay almuujiba lilgusli waa manidi yacni isagu wuxuu waajib yeeli qubays falaa naqda bihi weysadii manidu kuma burayso kaan amnaa see ku suurtogeli qofka qof maniyu ka timid weysadiina aysan ka burin see suurtagal ku noqone waxay suurtagal ku noqon kaan amnaa qofkii mani ayaa ka timid oo waa mani keenay bimujaradi nadarihi oo haweenuu fiiriyey ama islaantiyaa nin fiirisay markaasaa sidaas mani uga timid waana weyse qabay qofka markaa dee maniyaa timid weysadiina waa u jirtaa wa huwa ta'amulu biru'yati alcayn wax ku fiiriyey liannahu awjaba manidu waxay waajib yeeshay acdama alamrayn labadii arrimood kii weynaa ayay waajib yeeshay wahuwa algusl waa qubayskii bikhusuusi kownihi maniyan waxayna ku waajib yeeshay inuu mani yahay khaasnimadeeda falaa yuujibu ma waajib yeelayo manigu adwanahumaa adwana alamrayn labada arrimood midkii ugu liitay ma waajib yeelayo huwa alwudu waa weysaqaadka bicumuumi kownihi khaarijin inuu khaarij yahay cumuumkaas kuma waajib yeelaayo weysaqaad manidu weysaqaad ma keento laakiin waxay keentaa qubays uunbay keeni athaani midka labaad oo nawaaqid ulwudu ka mid ah kan labaadoo weysada burinaya zawaalu lcaqli waa caqliga zuulitaankiisii binowmin hurdo uu ku zuulo aw gayrihi gayri nowm ama hurdada gayrkeed uu caqligu ku zuulo kan labaad oo weysada buriya waxaa weeye qofka haddii caqligii uu ka zuulo isagoo weyse qaba caqligiiyaa ka tegey caqligu noocuu doonaba ha ku tagoo hurduu caqligii uga tegey aw gayrihi gayri nowm ama hurdo waxaan ahayna caqligii uga baaba'ay ka junuunin waali oo kale oo qofkii maalan yacni waaliya ku dhacday ama waa suuxay markaasaa caqligii uu ka baaba'ay ama qofkii waa seexday markaasaa caqligii uu ka tegey marba haddii caqligaasi uu tago weysadii markaas way burtay laakiin waa haddii marka uu xaqiiqsado haddii xaqiiqo hurdadu ay tahay laakiin qofkii asagoo weyse qaba haddii uu shakiyo oo uu yidhaah talow ma huruday mise ma hurdin shaki hadduu yimaado mas'alatu shaki waxba kuma buraan maxaa yeele weysaqaadkaagu muxuu ahaa yaqiin markii hore hurdada ka hor shakigan intuusan imaanin maxaa yaqiin ku ahaa ood hubtay inaad weyse qabto waad ishubtay marka kabacdi maxaa yimid shaki marka yaqiintii ma baabi'in karo shakigu waa wax daciifa yaqiin horay u jirtay shakigu ma baabi'in karo marka qofka hadduu ku shakiyo inuu hurday iyo inuusan hurdin weysaqaadkii ka buri maayo markaas laakiin hurdadan oo caqligu uu ku zuulay marka weysada ay burinayso waa dadka kale oon ambiyada ahayn amaa ambiyada iyo rususha ilaahay hadday hurdaan ayagu weysadii kama burto xugum ahaan xadiis saxiixa ayaana nebigu sidaa ku caddeeyey salى الlahu عalayhi wasalam inaa macshara alambiyaa tanaamu acyununaa walaa tanaamu quluubuna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annagu haddii aan ambiyo nahay oo rusushii ilaahay haddaanu nahay indhaheenna ayaa hurda laakiin qalbiga kama hurudnuu yidhi rasuulku salى الlahu عalayhi wasalam marka waxaa weeye ambiyada ilaahay rususha ilaahay qalbiga kama hurdaan saas awgeed caqligoodii wuu joogaa iyaga wuu joogaa marka ambiyada yacni weysadu ugama burayso hurdada iyagu ay hurdaan laakiin waxaa loola jeedaa dadka kale ilaa nawma qaacidin qofkii fadhiyey hurdadiisii maahane qofkaasoo mumakkinin
ku adkeeyey maqcadahu salkiisii min alardi dhulka ku adkeeyey ilaa qof qaabkaas u hurday maahane qof isagoo salkiisii dhulka ku adkeeyey sidaa u hurday oo intuu lugihii isdhaafsaday baridii salka yacni ku adkeeyey dhulkii ku adkeeyey oo sidaa ku hurday qofkaas hurdadaas qabatay weysadii kama burinayso maxaa yeelay awalba waxaa laga baqaayey qofka maadaama maaragtay uu hurday inay dabada wax ka yimaadaan ayaa laga baqaayey ilaa xadiiskii wuxuu ahaa nabiga salى الlahu عalayه wasalam xadiiskii abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed ay warinayeen ayaa wuxuu rasuulku ku yidhi salى الlahu عalayه wasalam alcaynaani wikaau sahi labada indhood waa yacni xariggii dabada xarig waxaa u ah oo inay wax ka soo baxeen iyo inaysan dabada wax ka iman waxaa lagu fahmi karaa labada indhood inay soo jeedaan labadaada indhood inay soo jeedaana lagu fahmi karaa labada indhood waa xariggii dabada fa idaa naamat alcaynaani labada indhood hadday hurdaan istadlaqa alwikaa xariggii waa furmay faman naama qofkii hurda falyatawada ha weyse qaato qofkii hurda ha weyse qaato wi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh laakiin qofka haddii qaabkaas uu u fadhiisto lugaha intuu isdhaafsado salkii uu ku adkeeyo meesha uu fadhiyo uu ku adkeeyo saa uu u hurdo weysadii ka buri mayso maxaa yeelay dabadii fursad uma helayso inay wax ka soo baxaan dabadii fursad ay wax uga soo baxaan maba helayso qofku salkiisii ayuu dhulka uu ku adkeeyey lugihii intuu isdhaafsaday taana waxaa daliil u noqonaya xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo wuxuu ahaa kaana asxaabu rasuuli llaahi salى الlahu عalayه wasalam yantadiruuna alcishaa asxaabta rasuulka salى الlahu عalayه wasalam waxay sugi jireen cishahay sugi jireen xataa takhfiqa ru'uusuhum ilaa madaxyadooda iyagoo fadhiya ay raaracsadaan cishaha markay sugayaan intay hurdoodaana madaxooda uu raaracsan jiray asxaabta ثuma yusalluuna waa tukan jireen walaa yatawada'uuna asxaabtu mana weyse qaadan jirin cishahay sugayaan madaxiina waa raaracsaday hurdo darteed oo madaxii la raaracsaday asxaabtu marka waa iska tukan jireen mana weyse qaadan jirin saasaa imaam muslim saxiixiisa ku wariyey culimmada marka xadiiskaa waxay ku xambaareen inay asxaabtu markaa u fadhiisan jireen qaabkan ah almumakin maqcadahu min alard qof salkiisii dhulka ku adkeeyey inay qaabka asxaabtu u fadhiisan jireen sidaasna weysadu aysan uga buraynin oo cishahaba sidaas ay nabiga ula tukan jireen salى الlahu عalayه wasalam laakiin ilaa nawma qaacid mumakinin maqcadahu min alardi marka la leeyahay waxaa shardiya un an laa yakuuna bayna almaqcad wاlmaqar tabaacud adiga dabadaada iyo meesha aad ku fadhiso waa inaysan u dhaxaynin kala fogaasho waa inay isku dhegan yihiin salkii iyo meesha aad ku fadhiso inay isku dhegan yihiin ayaa shardi ah oo aysan kala fogeyn haddii laakiin duleel uu u dhexeeyo salkii iyo meesha aad ku dhexayso duleel uu u dhexeeyo oo dabadu markaas ay fursad u heli karto inay wax ka yimaadaan haddee markaas weysadii way kaa buri haddiiba tabaacud uu u dhexeeyo alraabicu midka afaraad ee min nawaaqid alwudu athaalitثu midka saddexaad ee min nawaaqid alwudu ka mida waxyaalihii weysaqaadka burinayey iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'a nin iyo naag korkooda kulankooda wey nin iyo naag korkooda kulankooda wey nin iyo naagtaasoo kabiirayni ee waaweyn nin iyo naagtaasoo ajnabiyeyni ajnebi kala ah min gayri xaa'ilin shay u dhaxeeya la'aantiisna ay kulmaan jirkooda nin iyo naag oo xaddul ishtiha gaaray ajnebi kala ah oo wax u dhexeeya aysan jirin ayaa jirkoodii istaabtay taabashada jirkooda uu istaabtay waa naaqid min nawaaqid alwudu waa waxyaalaha weysaqaadka burinaya waa qeybtii saddexaad oo weysadu ay ka buraysay maxaa yeelay waxaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu deliishaday qowlka ilaahay aw laamastumu الnisaa dumarka haddii aad taabataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi weysadiinu waa burtay marka lamsigaasna imaamu shaafici wuxuu ku fasiray in loola jeedo aljasu bilyad waa taabasho gacanta lagu taabto ayaa imaamu shaafici ku fasiray isagoo marka imaamu shaafici ku raacay tafsiirkii cumar bnu اlkhadaab sayidina cumar bnu اlkhadaab isagana aayadda aw laamastumu الnisaa wuxuu ku fasiray in loola jeedo aljasu bilyad in gacanta lagu taabto
gacanta in lagu taabto haddii nin iyo naag kale ajnabi ah ay istaabtaan weysadii sidaasay ku burtay waxaa kaloo aayadda sidaa ku fasiray cabdullaahi ibnu mascuud waxaa kaloo aayadda sidaas ku fasiray cabdullaahi ibnu cumar asxaabtaas waxay intooda badan ay ku fasireen aayadda in loola jeedo gacan ku taabasho in loola jeedo aljasu bilyad in loola jeedo walidaalika xadiiskan dhahaya oo yacni nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana yuqabilu bacda nisaa'ih nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa qaybo ka miduhu soo dhunkoon jiray waana tukan jiray walaa yatawadda mana weyse qaadan jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo intuu dumarka qayb ka mida dhunkoodo uma kharaja ila asalaati walaa yatawadda salaaddu isaga bixi jiray mana weyse qaadan jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas dhahaya xadiiskaasi waa xadiis daciifa bukhaari ayaa daciifiyey imaamu albukhaari sida tirmidi uu sheegay imaamu tirmidi sida uu ku sheegay sunankiisa imaamu albukhaari aa xadiiskaas daciifiyeyo xadiisku xadiis loo deliishan karo haweenka iyo ragga kale ajnebiga ah inaysan weyse iska jebin karin looma deliishan karo oo wuxuu yidhi bukhaari xadiiskaas ma sugna oo waa xadiis daciifa walidaalika xadiis xoog leh hal xadiisoo xoog leh oo loo hayo nin iyo naag kale ajnebiya inaysan weysada iska jebinaynin xadiis ku soo arooray oo saxiix oo maba jiroba hadduu xadiis saxiixa ku soo aroori lahaana haddee maba khilaafeenba imaamu shaafici iyo sayidina cumar bnu alkhadaab iyo cabdullaahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cumar maba aysan khilaafeen xadiis saxiixu uu jiri lahaa sidaas awgeed mar walbaba waxa wanaagsan qofka marba haddii haweenka ajnebi ah marba haddii iyo nin ajnebi ay istaabtaan inuu qofku weyse qaato mar walbaba waa waajib weyse qaadka inuu sameeyo waajib wey adiga maxaa salaadaadaba khilaaf geliyey salaadaada maxaa khilaaf geliyey haddaad tidhaaho madaahibta isku khilaafsan oo abi xaniife iyaa qaba iyo cabdullahi ibnu cabbaas iyaa qaba inaysan ragga iyo haweenka kale ajnebiga wax kala jebinaynin salaadaadii markaas waxay noqonee salaad laysku haysto oo laysku khilaafsan yahay ayaad aakhire la istaagaya ilaahay hortiisa laakiin haddaad iska weyse qaadato cid salaadaadii wax ka sheegaysahay ma jirto oo ilaahay waxaad la hor istaagtay salaad laysku waafaqsan yahay inay saxiix tahay adiga marka labadaa mid kala dooro salaad laysku haysto inaad ilaahay hortiisa la istaagto iyo salaad cidna aysan waxba ka sheegaynin inaad ilaahay hortiisa la istaagto oo laysku waafaqsan yahay inay saxiix tahay labadaa dariiq middii kuu roon dooro midda roonna way cadda midda roonna way caddahay oo qof walboo caqlile uu qaadanayo oo uu dooranayo waa alkhuruuj min alkhilaaf mustaxabun mar walbaba khilaafka in laga baxo way wanaagsan tahay athaaliثu midka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin waimra'a nin iyo naag korkoodii kulankoodii wey ninkaa iyo naagtaasoo kabiirayni waaweyn marka kabiirayni maxaa loola jeedaa waaweyn waaweynka ulajeeddadama waxaa loola jeedaa inay mid walbaa 15 sano gaaro saas loolama jeedo alkibar hunaa bimacnaa albuluuq xadda الshahwa weyninka halkan waxaa loola jeedaa gabadhuna inay gaartay xad la ishtahayn karo oo la leeyahay maaragtaahay inay guri geli karto oo la ishtahayn karo guri ay geli karto ninkuna wiilkuna waa inuu gaaro xad la isdhihi karo wiilkana allaylehe waa guursan karaa oo xadul ishtiha waa gaaray xad la ishtahayn karo maahane 15 sano inay gaaraan waxba shardi ma aha waxba shardi ma aha gabadha marba haddii dabeecada saliimka ahi ay ishtahayn karto wiilkana dabciga saliimka ahi uu ishtahayn karo xadul ishtiha labadooduba ay gaareen haddee markaas waxay noqonayaan kabiirayn kuwo waaweyn ay noqonayaan shardi ma aha inay 15 sano ay gaaraan ajnabiyeyni maxaa loola jeedaa nin iyo naag kale ajnebi yacni ajnebiga ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa dad markaas aan maxram isku ahayn dad aan maxram aan isku ahayn maxramkana waxaa loola jeedaa meeshan marka la marayo baabu nawaaqid alwuduu maxramka waxaa loola jeedaa man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid adiga maxram waxaa kuu noqonaya baabu nawaaqid alwuduu marka la joogo waa qof gabar nikaaxeedu uu xaaraan kaa yahay cala ta'biid weligaaba aadan nikaaxsan karin taasaa maxram ah wixii ka soo haray weysada waa kaa jebinaya maxram maxaa la yidhaha man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid gabar guurkeedu uusan kuu bannaanayn weligeed
ومثلا سيده habaryaraha iyo walaalaha iyo eedayaalka iyo ayeeyaal iyo hooyayaal iyo waxa soo dhana mahram leeyahay kuwaas marka oo ta'biid ebedba uusan maaragta nikaaxoodii uusan ku banaanayn wixii ka soo haray ayaa loola jeedaa ajnabi marka ajnabi maxaa soo galaya ala hada taariifkan marka niraa baab nawaaqid al-wudu marka la joogo oo waxa de ajnabinimada xagga weese burinta baa loola jeedaa waxa soo galaya haweeneyda markaas adigu aad qabtid ilaa haweeneyda adigu aad qabtid marka guursanaysay guurkeedu xaraam kaaba ahayn oo waad qabtaaba waad guursatay marka saasay binisbati markii dhinaca nikaaxa la yiraaho maadaama nikaaxeedu uu ku banaanaaday waa ajnabiyaad kala ahaydeen oo weesada waa ka burinay naagta aad qabtid dadka qaar ku iskaal galiye waxay u maleeyaan waxay yiraahdaan oo naagta aan qabo waa mahramkayga see weese iga jibinay mahramka yaani wuxuu leeyahay abwaab baab walba mahramka meel loo fiiriyo sax way islaanta markii laga fiiriyo dhinaca khalwada inaad la khaali noqonaysid inaad la safraysid in haweentaadi ay tahay dhinaca markii laga fiiriyo waa sax waa mahram laakiin markii laga fiiriyo baab nawaaqid al-wudu weese ma jabisa mise ma jabisa markii laga fiiriyo waxa lagu diraa kuwa weesada jabiya ayaa lagu diray dhinaca weese jabinta markii la yiraaho ilaa mahram waxa la yiraa baab nawaaqid al-wudu markii la joogo man haruma nikaahuha ala ta'bid waa qof nikaaxeedu uu ebedba uu xaraam ka yahay loola jeeda الرابع متك أفراد ونواقض الوضوء كمدا مس قبول الآدمي آدمي قبول كيسة تابشدي سو قبول كوحل لولا جدا وماشا لغا كاديو قبول لولا جدا آدمي قبول كيسة قبول كتابشدي سو أو حلقة دبره دبر الآدمي أما آدمي دبديسة دبدا وريق جدا تابشدي دو يعني وحل لولا جدا قفك بن آدم meesha uu ka saxaroodo oo waliba wareegga saxaradu ka soo baxaysa loola jeedaa meesha wareegsan oo saxaradu ka soo baxdo dabadan kore oo baridan waxa ma jabinayso baridan meeshan hadii la taabto weesada jabimayso laakiin had meesha wareegsan oo saxaradu ay ka imanayso kaas way hadii la taabto oo weesadu ay jabinayso waxa kale oo lamid ah qofku meesha uu ka kaadinayo ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo meesha uu ka kaadinayo haduu asagu iska taabto ama qof kale uu ka taabto waa bure weesadi adiga yaa iska taabtay meesha aad ka saxaroonaysay oo wareega meesha aad ka kaadinaysay iska taabatay ama qof kale aad ka taabatay bisu weesadi way ka burtay walow sahwan halmaan ba ha u taabtay hatta adoo halmaansan hadaa iska taabatid meesha saxaradu ka imanayso oo wareega ama meesha aad ka kaadinayso halmaan hadaad u taabatid weesadi way ka buri walow mubaanan xibinta aad taabanayso xubin xataa qofka laga jaray ha noqoto oo banaanka iska taala xubin banaanka iska taalo jaray haba noqoto haythu sumiya farjan walaw ashalla walaw saghiran aw mayitan qofku qof meeyda ha noqdo qof saghira ha noqdo farjigu haba noqdo farji ashal oo qalalay ha noqdo wuxuu doona ha noqdo min nafsihi isaga iska taabtay oo غيري ama qof kale ka taabtay wa huwa qubulka fi ar-rajuli jamii'u nafsi al-qadib ونك وحلو لجدا ماشى يعني لانت دنا لو لجدا ماشى دنا ككاتشي كليgeed ayaa loo jeedaa dhamaanteed meesha hore kaliya ma aha waa dakarka cawradiisa oo dhan meesha uu ka saxaroonayo kulligeed loo jeedaa oo maxalli qadcihi ama waa booski laga jaray hadii dakarku uu ka jaray oo cawrada laga jaray meeshii laga jaray haduu taabto weesadu waa ka buri la ma tambutu alayhi al'ana meesha tintu ay ka soo dhalanayso haduu uu taabto ninku iska taabto ama isaga laga taabto weesadii ma ka burayso waa tinta hoose meesha ka dhalato meeshaas ma burayso wal baydataani labada baydo iyaguna weesadii burinayaan haduu ninku iska taabto labada baydo waxa loo jeedaa waa xaniya haduu taabto ilaa meesha yaani dakarka oo cawradaas oo dheer kaas baa weesada jabinaya xaniyaha weesada ma jabiyaan meesha tintu ka soo dhalato iyaguna weesada ma burinayso وما بين القبل والدبر dabada iyo meesha laga kaadiyo inta u dhaxaysa ayaguna ma burinayaan hadii la taabto wa fil mar'ati naagta meesha weesada hadii iska taabato ama laga taabto qofkii taabtay ee ka buraysa iyadoo hadii iska taabatana ay ka buraysana waa shafraha waa labadeeda faruuriyood waa meesha cawradeeda labadeeda faruuriyood al-multaqiyani ee kulmaayo faruuriyaha kulmaayo way labada faruuriyood oo kulmaayo loo jeedaa wahuma harf al-farji wa farjiga labadiisa gees المحيطان به فرجك هريرينايا كإحادة الشفتين بالفم sida labada faruuriyood ay afka u hareerayaan oo kale faruuriyaha booska u gaaraya
kaas way iyagana faruuryahaas loola jeedaa hadday iyadu iska taabato amaba maaragtay laga taabto qofkii taabtay ayaa markaas weysadu ay ka buri iyadu hadday iska taabatana weysadii waa ka burtay marka taas waxaa caddaynaya in naaqid uu yahay haddii cawradaa la iska taabto oo qofkii asagu iska taabtay ama haddaad qof kale ka taabato haddii weysadu inay kaa burayso waxaa caddaynaya xadiiskii imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo daaraqudni saddexduba ay warinayeenoo oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjih axadkiin hadduu gacantiisa la gaaro cawradiisa walaysa baynahumaa sitrun walaa xijaab gacantii iyo cawradiina wax astura iyo wax xijaaba u dhaxeeya aysan jirin falyatawadda ha weyse qaato uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam gacantaadii calacashaada iyadoo wax xijaaba oo astura oo cawradii ka dhaxeeya aysan jirin haddaadba iska taabatay adigii cawradii ama qof kale aad ka taabato weyse qaaduu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas imaam axmed ibnu xibbaan daara qudni saddexdoodaba way wariyeen wa qawaahu alxaafid ibnu xajar fii kitaabihi atalkhiis kitaabkiisa talkhiis ayuuna isnaadka xaafidku uu ku xoojiyey oo xadiiska wuxuu yidhi waa xadiis xoog leh xadiis kaleo iyadana busra bintu safwaan xadiiskii ay warinaysay oo tirmidi asaguna macnahan oo kale uu ku soo arooro man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawadda qofkii cawradiisa taabta yuusan tukanin uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa uu ka weyse qaadanayo yuusan tukanin uu yidhi waa xadiiska tirmidi uu sunankiisa oo isaguna ku wariyey taabashada xaggee weeye marka bibadni raaxa calacasha caloosheeda lagu taabto oo qofka cawradiisa hadduu asagu iska taabto meesha uu ka saxaroonayo wareegga ama uu iska taabto meesha uu ka kaadinayo calacasha caloosheeda uu ku taabto markaas weeye marka naaqid uu noqonayo oo uu wax burinayo aw butuuni اlasaabici ama faraha caloolahooda uu ku taabto calacashuu ku taabtay ama faraha calooshoodu ku taabtay waa inta markii sidan laysugu daboolo labada calacalood iyo farahooda markaasaan isugu dabooshid intaas isku daboolmaysa haddaad cawradaada ku taabato ayay naaqilta oo weysadii ay kaa burin laakiin haddii meesha yacni jirka meeshiisa kale haddaad ku taabato lugtaadoo kalea ku taabatay ama gacantii meeshan calacasha maahane dhabarkeeda ayaad ku taabatay cawradaadii ma kaa burayso markaas ma kaa burayso waxa burinaayo waa labadaas la ysku daboolay calacasha iyo faraha calooshooda oo saa la ysugu daboolay intaas isku daboolmaysa markaad ku taabato yacni cawradaada aad ku taabato ama adigu qof kale aad ka taabato markaas wey amaa haddii calacasha dhabarkeeda aad isaga taabatid ama qofka aad uga taabato ma kaa burayso markaa bibadni raaxa calacasha caloosheeda lagu taabto ow butuuni اlasaabic ama faraha caloolahooda lagu taabto marka afartaas ayaa waxaa la yidhaha nawaaqid اlwudu waxyaalaha weysada burinaya afartaas laga bilaabo kii axadu sabiileyn kii ka soo baxay axadu sabiileyn labada jid marka la leeyahay waxaa soo gelaya ruduubat اlfarji waa waxyaalaha inta badan haweenka lagu ebteleeyey ruduubat اlfarji waa soo geliyo waa naaqid oo min nawaaqid اlwudu ka mid a ruduubat اlfarji ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa haweeneyda marka ay egfashinka uu ku dhaco oo kale qoyaanka ka imaanayo qoyaana ka yimaada cawradii qoyaanka waxaa loo yaqaanaa sharciga islaamka ruduubat اlfarji qoyaankaas marka egfashinku uu keenayo oo haweenkii cawradoodii ka imaanaya qoyaankaas labaa loo kala qaadi laba mas'alo ayaa loo kala qaadi imaamu axmed raximahu اllahu tacaala wuxuu yidhi waxaan su'aalay ruduubat اlfarji imaamu shaafici aan su-aalo yidhi imaamu shaafici ayaan weydiiyey marka ruduubat اlfarji waxaa loo kala qaadi haddii qoyaankaasi uu ka yimid min waraa baطin اlfarji yacni cawrada dumarka farjiga markii ay fadhiisato oo kaadida iyo ay u fadhiisato intaas muuqanaysa maahane meel ka fog oo dheer haddii qoyaanku uu ka yimid meel fog haddii qoyaanku uu ka yimid waa nijaas weysadiina waa burinay waana nijaas waana naaqid min nawaaqid اlwudu waa haddiiba maaragtahay meel baadin oo fog hadduu ka yimid oo qoyaankaasi uu ka yimid waana nijaas weysadiina waa burina ama ruduubat اlkhaarija min daahiri اlfarji laakiin qoyaanku hadduu ka yimaado
farjiga yacni muuqaalkiisan kore oo haweenku haweenaydu markay kaadida u fadhiisato muuqaalkan kore qoyaan iska saaran hadduu yahay oo wax gadaal ka yimid gadaal ka soo baxay uusan ahayn wax gadaal ka soo baxay uusan ahayn hadde markaas wuxuu noqon waa meesha laga istinjoodo markay istinjoonayaan ay dhaqayaan meesha wax ka yimid qoyaanku ku sinan hadduu yahay fa hiya ruduuba daahira markaas waa iska daahira waa dhididoo kale uu la mid yahay haddii qoyaankaasi meel fog uusan ka imaanin oo meesha ay ka istinjoonayaan haweenku markay fadhiistaan intaas muuqanaysa bis intaas muuqanaysoo dhididay hadday tahay waa markaas waxay iska noqonaya waa wax iska daahira weysadiina markaas kama burayso laakiin haddii rudubadaasi ay meel fog ka timid oo waraa baatin ilfarji ay ka timid waana nijaas waana naaqid min nawaaqid alwudu faslun hadakani faasilun mid wax kala saarow marka waxaa jira masaa'ilka waxaan soo qaadannay masi iyo lamsi labadaas masaa'il farqi u dhexeeyaa jira farqigaas ilaa wuxuu gaaraa 8 farqi ayuu gaaraa masi iyo lamsi maxaa la kala yidhaha yacni lamsiga waxa weeye waa nin iyo naag kale ajnabiya hadday istaabtaan waan soo marnay weysadu inay burayso iyo daliilkeeda waan soo qaadanay masigana waxaa la yidhaha waa qofku cawradiisii inuu asagu iska taabto ama qof kale uu ka taabto marka qofka cawradiisa markuu iska taabanayo iyo adiga markaad haweenay ajnabiya aad istaabataan farqiyaa u dhexeeya labada masalo ilaa 8 farqiyaa u dhexeeya oo farqiga u dhexeeya waxa weeye naqdiga anna naqda fi lmasi khaasun bisaaxibi اlkafi faqad oo qofka cawrada maaragtaahay taabtay weysadu waxay ka buree qofka wax taabtay kaliya oo maalan adiga laba nin aad tihiin adigaa ninkan ka taabtay cawradiisii kii taabtay bisay ka buri kii la taabtay ninkii la taabtay weysadiisi waa u saxiix haweenka iyagana waa saas oo kale laba haween iyagoo ah haddii midda kale cawrada ay ka taabato tii wax taabatay unbaa weysadu ka bure tii laga taabtay ilaa ikhtilaafu ljinsi hadduusan jirin tii laga taabtay weysadeedii waa u nadiif oo waa u saxiix masalada labaad ay isku khilaafayaan waxaa weeye laa yushtaradu fi lmasi ikhtilaafu nawc dukuura wa unuuha oo lama shardinayo cawrada taabashadeeda in nin iyo naag ay sidaas ay u kala bedelan yihiin shardi ma aha oo waxaa weysada iska burin karaa shaksigii keligiis hadduu istaabto oo nin iyo naagnimo inay isku khilaafaan shardi ma aha taas oo qofka keligiisaaba weysada iska burin karaa hadduu asagu iska taabto waxay kale isku khilaafayaan masiga qad yakuun fi shakhsi alwaaxid fayaxsulu bimasi farji nafsih oo waxay isku khilaafayaan masiga taabashada hal qof aa weysada iska burin kara laakiin tii kaleo mas'aladii lamsiga waa in laba qof oo kale ajnabiya la helo oo nin iyo naag ah waxay kale isku khilaafayaan an laa yakuuna ilaa bibaatini اlkaf wa buduuni اlasaabicna meeshay ku jirtaahe oo mas'alada cawrada taabashadeeda waxay khaas ku tahay calacasha iyo faraha calooshooda bis ayay khaas ku tahay haddii jirka intiisa kale lagu taabto markaas weysadii ma burayso sida aan soo marnay laakiin ninka iyo naagtu markay istaabanayaan meel kastay iska taabtaan weysada waa buri lug iyo gacan iyo dhabar iyo meel kastay iska taabtaan ayaa weysada ku buri waxay kaloo isku khilaafayaan annahu qad yakuun fi lmaxram wagayri masalada cawrada taabashadeeda looma shardiyo ajnebinimo oo carruurtii aad dhashay cawradoodii haddii aad taabatid waa kaa buri ilmahaad dhashay cawrada haddaad taabatid xataa masalada lixaad ay isku khilaafayaan waxaa weeye anna masa alfarji almubaani yanqud oo cawrada iyadoo go-an haddii oo inta la gooyo qofka cawradii laga jaray meel taalla haddii aad taabatid weysadii waa kaa buri laakiin haweeney xibinteedoo go-an haddii aad taabatid gacan haweenoo go-an aad meel yacni taabatid weysadii kaa buri mayso iyadu taasna waa isku khilaafayaan waxay kaloo isku khilaafayaan masiga taabashada oo cawraday khaas ku tahay cawrada bis ayay khaas ku tahay oo laba nin haddaysan cawrada iska taaban oo ninkan cawrada haddaadan ka taabanay dhabarka aad ka taabato iyo meel lamid ah weysadaadii waa saxiix waxay kaloo isku khilaafayaan laa yushtaradu alkibar fi lmasi duuna lamsi weynin looma shardinaayo cawrada taabashadeeda qofku inuu weyn yahay shardi ma ah ilmo yar waxaa la dhashay cawradiisi waa kaa jibine haddaad taabatid laakiin masalatu lamsi waxaa shardi ahayd kabiirayn yaa shardi ahayd 8 masale isku khilaafayo faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro